koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan hooy hooy soomaaliyey hooy haddaad wax maqlaydhaan hadalkayga qaadho dalka hadimadiisii haw hadiidinaaye war waad waalan tahay bug iyo haw aad ku soo dhaqanto ku soo dhimatae maxay tahay dalka hadimadiisiiyo haw hadiidina heeska bacalwaan ma ahayn sidaa dalka horumarkiisiiyo hawl hadiidina buu ahaa walaalo ku caliya adiga laftaadan fiyoobayne jenaraal haw ma soo dhowaan 93 baa dalkan laga ciri war dadweynow i dhegaysta xilli waxaynu joognaa faladegan tubaac yahay balballaar magool tahay war gabaygii cabdidhowsaas ma haynana dhegayso xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooye laga tagay xishoodkii war saas ma haynana dhegayso xilli waxaynu joognaa nin xafiday ammaanada kan xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa jidadkii la xirayo shacabkii xaniban yahay xilli waxaynu joognaa xoolaha sidoodii dadka loo xarayn karo warhaadha waxaa taqaana malhay dhegaysta xidid iyo sokeeyiyo xigte iyo qaraabooy dabkan xawligaa kacay ha u noqonin xaabee xaalka nabadda admiga qof kastaa xil gooniya iska saara xaggiisa waraa canugaani musharax abwaan miya war haddinay masiin lahayne balballaarka magoola bedeli marka lankuun hadraawiya bedeliye waryaani waxaan u malaynayaa inuu dhoodaan bedelay war waxaa la yidhi nacayb hebel ku seejiye jacayl hebel ku naasnuuji naxli qoon adoogoo ma jiro sama ku naaxaye halkaasaan ka sii wadahayaa nuunka maansada sii wad weligaaba annagaa soo gaabinaynayna dhegayso nin jacayl abaartan ku dhacay boodi kari waaye laamiga inuu jiifsaday tani qasbaysaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war laamigaada allaha gubee laami waa waxriin xaggee saaxanaysaa ma jiif baa loo diiday maridaa loo diiday war jacayl waxba kama taqaanaana waxaa la yidhi soo wixii duqabeeso dabagaallo u geeya doq jacayl ma ahayn war jacayl qof baan soo marin baa wuxuu leeyahay jacayl baan soo maray ilmaha yaryarkaa hadda jacayl ka sheekaynay war hana xasuusinina wixii hore tegey ayay ma jacaylka gooya ugu jabiye warniyo waxaan la yaabanahay faysal cumar xaashi maxaa kalmaan ku diray war faysal meeluu maruu waayey oo bac ka siiya inta ilaahay ku itixaamay bay jidadkii oo dhan ka xidheen war bac ka siinaysa muraytar sawdiro haddaa gurigiis baa bac ka sii xaalaya la wada dalacsiiyey laakiin waxaan la yaabanahay sababta saraakiisha hore loo dalacsiin waaye waxaana la yidhi sangabaaratamay kii balaysani boodi kari waa waraa waxaadna oga inaad ka hadashaane kuwii hore maxay qabteen lagu dalacsiinayaa bac kasii waad ogtihiin siday bajaaj ley uga cabaadsiiyeen waraa bac kasii in la dalacsiiyo waa mudan yihiin waad ogtihiin sidii waddooyinka ay dhagaxaan u dhigeen oo carro ay u dhooween hal waddaa furun inaa xiraan rabaa birisilii dalacsiiye war horta nimaya war ma haysaana kuwa badan oo aan la dalacsiin baa jira laakiin ilaahu adaan ku barinay aysa kuwaasi nugu dalliceen annaga war ma haysaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi joon dadka uu aniga iga laayay ayuu ku dallacay cadaaladuna maray imaan doontaa ayuu sii raaciyey marka hanjabaaddiisa waxaan u fahmay markii aan madaxweyne noqdo ayaan dekarata xilka uga qaadi doonaa war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ilowsan yahay saadiq inuu askari yahay askarina amarkii la siiye qaato berrina hadduu madaxweyne noqdo amarkiisuyuu qaadanaya marka bilaashuu cadaalada imaanaysa u leeyahay cadaalad kastoo timaa askari amaru qaadanaya warwar mahaysina ciidanka ammaanka dhuusareeb dawladda ku wareejisay bac ka sii ma ahan waa nabadsuguddii galmudug iyo ciidankii ahlusunan isku daray war inaysan bac ka sii ahayn waxaa la ogaanayaa markay xarardheere iyo ceelbuur iyo ceeldheer bug ka siiyaan waraa galhareer iyo bargaan iyo jacar ayaad ilowdee ayagana maa bug laga siiya balaayaha kugu dhacdee lamba tuulidu islaaka buri ay shabaabha ka dugdi allan hurayay fade sheekadu waxay u eg tahay ninba ceesaantii ceelkeen war gaalkacyo dhinaca buntland ay ka maamusho shidaal maa laga helay war shidaal ha ku gubay in lagu shidaa la diidey war guddoomiyaha dhallinyarada jacfar miyaa laga shakiyey inuu khayra taageeri rabo war khadiija waxay tidhi libaax laba maaha war 2021 ayaa la kala ogaan doonaa bisidii libaax warwar ma haysiine ganacsatada iyo shirkadihii balaaya u soo baxday daacish iyo shabaab ayaa ku tartamaya siday u baabi'in lahaayeen
mid waliba waxay rabtaa canshuurta midaas la sii mid ka badan haddii ganacsatadu ay waayaan dowlad difaacda ma sii jiri kara ganacsiga Soomaaliya war maxay tahay shabaabka daacishka ka hadlisay xamar miisi dowladdu ka tarin war ganacsatadu hadday dowlad difaacda waayeen waxaan dhihi lahaa bashar ha isku dulayna beesadaad bixinaysa booshiyaa ka ku iibso war saas ma ahana waxaa la yidhi dar alliya si daacada dadkii dowladda u raacsan dakhligii iyo canshuurtii dalkana maalin qura diidin deganaanna waayiya ammaan soo dulmane ma warnimiya war mahaytana garamada midoobe warbixiin hasaarti war adaa dhihi jiray buush weelkan buuyi ma macawnay sawda maya saas ma aan hay darookay soo badi raba ayay waa yaabnay goorma kimistrigan barata war baana dablinshadii hanku hoobataan oo dhegan sida warka wali artay qarayga kismaayo ku dhii kii soo bacmalaha yeereen waan walha abaabuli jawaab shaleysna ma mayba ku fadaane maamulka dawladda ikan kismaayo inoo laha edaay dadkii falkunka dambeey tilaaba aada lacada ina lakagaada war waxaa la yidhi jabhadaha gantaalaha qarxiya kii gunnada siiyey garaamkana ka taageeraya gumaca baaruudda iyo kii gurmanayoo lahaa gaagga balancaynsho mid bashaar ha noo soo gashada gurucya dheertiiye isku guuri labadoodu waa good iyo abees war miyaan laguu sheegin mid bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaki ma leh inay laba shaab wada shaqeeyaan war miyaan hore laguu dhihin ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya farmaajo ma xamanoosa waryaa madaxda Soomaalida laba dal leh dambi ay isku galnayaan xabsiga leedin taxaamine war waxaa la yidhi saldhigii cisbitaal qof rab lama geeyo qof rabana lagama soo bixiyo ma ahana waxaa la yidhi siyaasadii kuma fiicna jeeb maran jacaylkuna ka sii daran warnimada ciisajiinkadu wuxuu yidhi dowladdu waxay tidhi eboolaha laga sheegay ugandaan ka hortegayna nimanka halkan fafadhiyana lagama hortegi karee siday isku qabanaysa war ninkaad sheegaysaa waxba ma kala oge meeqa qaraxoo dad ku baaba'ay baa dawladdu ka hortagtay war Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya war ma heshiiyeen labaduba laba been oo kala duwan ayay sheegeen ma hadda kuugu horeysa labaduba midba mar waxay sheegeen in ariga Sacuudiga la geeyay la dajiyay hadda ariga xala markabka saaray wali lama dajin ganacsatadana waxay dhaheen khilaafka labada dhinac ayaa ariga u baaba'aya war maxaa loo daji waayay meesha maxmaali baa laga waayay ar wax ma kala ogide xamaali ha ku dilee naga tagniyo war dawladdu waxaan dhihi lahay in siyaasadda iska dayaan ganacsatada xoolaha u fasaxaan ganacsatada waxaan oran lahaa xoolaha iska daaya siyaasadda ku falisa nimanka war ma dishid ninka war gargara waryaada dukaama ma gadataan dalkana uma shaqaysaan dulmiga jooj laga taga iimaanka Allah idin gelsi